wali waxaa ka socda magaalada Gaalkacyo oo wareejinta xarumaha dawladda ay hore u haysan jireen shacabka magaalada Gaalkacyo. Guddiga horumarinta iyo qaabaynta magaalada Gaalkacyo ayaa maanta ku wareejiyay baarlamaanka Puntland xarun ay ku yeelanayaan gobolka Mudug. xarunta maanta lagu wareejiyay baarlamaanka ayaa hore u ahaan jirtay xaruntii wasaaradda xanaanada xoolaha ee dawladda dhexe ee Soomaaliya. Duqa degmada Gaalkacyo Cabdicasiis Jaamac Nugaal ayaa ku wareejiyay furayaasha xarunta uu baarlamaanka ku yeelanayo gobolka Mudug. xildhibaan Xuseen Axmed Nuur Ismaaciil oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Puntland waxa weeyaan saaka waxaan wareejinaynaa gurigan aan dhex taaganahay. gurigaas oo waagi hore ay lahaan jiray xanaanada xoolaha, laakiin aan ku wareejinayna saakayto baarlamaanka muxuu gobolka Mudug dawladda Puntland. xubnaha gobolka Mudug kamida baarlamaan kamida ayaan ku wareejinaynaa. aad iyo aad baa maartay xoogaa guriga dayac badan uga muuqda. waxaa loo baahan yahay in wax laga qabto, waxaa loo baahan yahay maartay in bilicdiisa la soo celiyo, waxaa loo baahan yahay in degdeg maartay loo dayactiro. xildhibaan Xuseen Axmed Nuur Ismaaciil oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa isna sheegay inay bilaabayaan dhismaha xaruntan uu ku yeelanayo baarlamaanka gobolka Mudug sida ugu dhaqsiyaha badan. gurigan aad iyo aad baan u jeclaan lahayn baarlamaanka maadaama uu adeed farac ku yeelanayo dawladdiina ay mataqaanaa hay-adaadkeedii oo dhan gobolka ka howlgalayso. waxaanu mataqaanaa ballan qaadaynaa waxyaabihiina loo kaga baahnaa oo aanu la maqnayno baarlamaanku fariisinkiisu wuxuu ahaa meesha la yiraahdo Garoowe, inaanu faracan ku shaqayno sida ugu dhaqso badanna aanu u dayactiro. isla waxaanu rajaynaynaa labadan bari gudahoodaba inaanu u diro injineeradii. gudoomiyaha guddiga qaabaynta iyo horumarinta magaalada Gaalkacyo ahna wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka dawladda Puntland Cabdishiid Maxamed Xirsi ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan xarunta uu ku yeelanayo baarlamaanka Puntland gobolka Mudug. aad u soo dhaweynaynaa, aadna ugu faraxsanahay maanta halkaan gurigan xanaanada xooluhu hore u lahayd inaan ku wareejino xubnaha baarlamaanka ee gobolka Mudug. insha Allah waxaan u malaynayaa bayska ku yaal oo rasmiga Garoowe oo xarunta dhexe ee golaha wakiilada Puntland marka laga soo tago gobolada uma badna baarlamaanku xarumo ay ku shaqeeyaan. waa bilow fiican, waxaan rajaynaynaa inay bilaabatay, laakiin gobolada kale oo dhan in loo gudbi doono. meel walbana baarlamaanka gobol kasta oo uu joogo inuu yeesho xarun oo ku shaqeeyo. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxay ballan qaadeen baarlamaanku sida ugu dhaqsaha badan gurigan bilicdiisa iyo haybadiisa inay dib u soo celin doonaan, ay noqon doonto bays golaha wakiilada ee gobolka Mudug ay ku shaqayn doonaan oo shaqadooda maalinlaha ay ku gudan doonaan, oo dadka ay wakiilka ka yihiin xaaladiisa ay insha Allah ugu kuurgali doonaan, ulana shiri doonaan. waxaanu intayada kale maanta marxaanti ka nahay kala wareejintaas guriga inay ku shaqeeyaan dawladda xubnaha golaha wakiilada ee Puntland. Maxamed Cabdicasiis Warsame, Kalson TV, Gaalkacyo.